shirkadda caalamiga ah ee Tianis oo ah shirkad ka howlgasha 190 waddan oo caalamka ah kana shaqeynaysa dalka muddo 12 sano ah isla markaana ka howlgasha dhammaan gobollada dalka ayaa maanta waxay garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho ka ambabixisay 65 ruux oo u dirtay dalka Sacuudiga si halkaasi ugu soo gutaan acmaasha umrada. shirkadda Tianis ayaa iibisa alaabaha dabiiciga ah iyo kuwa nafaqada waxaana sanad walba ay abaalmarino kala duwan siisaa howlwadannada la shaqeeya shirkadda kuwaas oo hela abaalmarino kala lacago kaash ah gawaari dalxiis siminaaro iyo waliba umuro kale. qaar ka mid ah dadka ka faa'iideystay fursadan qaaliga ah oo ay siisay shirkadda Tianis ayaa dareenkooda ka hadlay waxaana ay shirkadda iyo mas'uuliyiinta ugu mahadceliyeen sida ay ugu sahleen inay soo gutaan acmaasha umrada. الحمد لله في نعمه ويكافي مزيده وعن مانت أو تاريخ أي تاي صدق كبيشة سديدات قبل كل مراتن هي الشنطة هي وحان سفر إنها يوم يربون كعالمي مقدشة كدول لنا ونقدر لنا يعني عمرنا سوق رئيسنا عمرنا سوق بالله ونيس جدة والنبي قبل يسوع زيارة لنا وصدق أصل ذهب يجي عبادة حان نص التجارية بعد الله شركة تيانس هذه من شركة هذين إياه قبل النضاء يضرك هوشة وضاء ناس علي وحنقول رجينا النادي يهرمر وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله سمع الحمد لله. أنا أنتم فرحسن هاي إلهي جنما كاي إنسان تجليي دلين بوركيجا ويديدا وحي جميلة هاي إن بيتك إلهي تقول الحمد لله والبارك يتيم كيجا ودمان أنا سلوى رمسنا دمان لحدن يشون فوق وتيم كيجا وأن كذا شيء وإهل كيجا ومحبي هذا يأذ الصحابنا هاي وهذا الشقين نقدر هاي سنة ما أنت شركة عالمية تيانس كامبري انترناشنال أو نوصل تجلسي إن أنا ما أنت أنا بيتك إلهي وقوة الكلام الحمد لله سمع الحمد لله إلهي بما هذا سمعتي لما أنتين عبد shirkadda Tianis ayaa sanadkan bilowgeedii waxay 100 qof ku guddoonsiisay gawaari kulan ka qabsoomay gudaha magaalada Muqdisho halka bishan dhexdeeda ay qaar ka mid ah heleen dalxiis kuwa kalena ay aadeen dalalka caalamka sida Malaysia iyo Imaaraadka Carabta. aadan alxam TV Shabeelle Muqdisho.